الدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinta waxaana ku xigeenada guddoonka baarlamaanka xildhibaanada xubnaha golaha wasiirada ururada bulshada ardayda saxafiyiinta ciidamada amniga iyo guud ahaan bulshooyinka reer Kismaayo soo dhaweynta fiican ay maanta ugu soo dhaweeyeen magaalada Kismaayo. ilaahay baana mahad iskale subxaanahu wa tacaala. ilaahay annagana nabad nagu soo nabad celiyey. waan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. waxaa kaloo mahad kulligeed iskale rabbi subxaanahu wa tacaala oo maanta shalay markaan halkan ka tegayeyna siigadu ay xidhnayd, maantana godadka biyuhu ku jiraan iyo cagaarku uu isxidhay. rabbi baana subxaanahu wa tacaala iska leh waxa intaa leeg inuu hal mar bixin karayo. ha yeelatee nimco waliba nuqsaanteeda, laakiin maanta dhulku wuxuu xidhay quruxdiisii iyo ziinadiisii oo dhan oo maanta waad arkaysaan. ilaahay baa mahadda iskale subxaanahu wa tacaala. intaa ka bacdi anigu waxaan u baxay safar caafimaad. alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala. safarkaa caafimaad aan u baxayna natiijo fiican baan kala soo kulmay. ilaahay xanuunadii aan markaa u tago indhaha iyo u badnaa dawadeedii waan helay. iyadaasaana waxay ahayd waxa ugu muhiimsan oo hadda waxaan ka baxay kowdii bishii hadda dhammaatay yaan magaalada ka baxay. ilaa intaasna caafimaadka iyo arrintaas un baan ku daba jiray. taana waxaan ilaahay baa iskale shukrigiisa. ka bacdina dee ciddii ka soo qayb qaadatay iyo dhakhaatiirtii iyo cid kastoo iga taakulaysa waan uga mahad celinayaa. intaa markaan ka soo gudbo kolley xaaladda guud ee waddanku aad bay u fiican tahay. waxaanan isleeyahay safarkayga dhexdiisa waxaa hadda aad loo hadalay oo ka mid ahayd booqashadii hadda ugu dambaysay ee ku soo maray Etoobiya oo kale. taas oon isleeyahay iyaduna wuxuu ahaa mid wejiga fiican sax ku ahayd. weliba arrinta ku saabsanayd inaan amniga Etoobiya weydiisto ninkii qalbi dhagaxa cabdikariin, isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isagiina la kulmo kana wada hadallo insha allahu. ninkaasina arrintiisu haddana xaalad aad u fiican uu ku nool yahay, kiiskiisuna uu si fiican ku soo dhammaan doona insha allahu. taas aan shacabka rabo inaan u gudbiyo. taa marka laga soo tago waddanka Soomaaliya, waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo bal xaaladda guud ee waddanku uu ku jiro iyo sida maanta ay wadcigu uu yahay. siyaasadda guud Soomaaliya waddan taariikhla buu ahaa. maanta waxaad aad u walaacaysaa markaad aragto dowladihii nala qayrka ahaa meesha ay marayaan iyo halka xaaladooda ay marayso. waxaa kugu dhalanaya dib inaad u fiirso taariikhdii shalay aan soo maray, weliba dadka yagii soo gaadhay dowladnimadii Soomaaliya iyo siday ahayd, inaan aad u qoomamayno oon isu weydiinno xaaladdii shalay aan ku jirray sida lanoo wada dhaafay iyo maanta meesha aan maraynahay. waxay keentaa wax badan dadku inay walaac badan ka muujiyaan. laakiin waxaan is leeyahay hadda waxay ku socotaa waddo fiican oo sannadihii ugu dambeeyey aan is leeyahay waddanku wuxuu horay ugu socdaa, bal in ay soo kabato oo Soomaaliya maanta marxaladdii ay ku jirtay marxalad ka beddelan ay maanta qaadato. taasoo aan is leeyahay waa mid qof walba oo Soomaaliya rajo gelinaysa oo farax gelinaysa ayay ahayd. waa qodobka koowaad ee maanta Soomaaliya markaan fiirino waxaa soo dhammaaday dagaaladii sukeeye, kii qabaa'ilka. waxaa nagu hadhay waa wax yar oo dagaallo firaq oo nimankan shabaabka oo kale iyo waxa kale soo raacay waa masaalix ama siyaasi ha noqoto ama masaalix kale ha noqoto, waxyaalaha la iskaga hor yimaada ka mida. taa waxaan aad ugu rajo weynahay inay noqoto shayga keliya ee qof kasta oo Soomaaliya ama mas-uul ah ama mas-uuliyadda Soomaaliya maanta ay saaran tahay inuu ka fakaro uu u baahan yahay. maanta berri waa tegaysaa, maxaad ka tegaysaa, maxay taariikhdu kaa qoraysaa. hubaal waxaa ah qof kastoo maanta mas-uuliyad Soomaaliya hayaay inuu berri tegayo, laa shaka. laakiin su-aasha ugu muhiimsan waxaa weeyaan qof walba su-aasha la isweydiinayaa berri muxuu kaga tegey, taariikhda muxuu ku soo kordhiyey, xaaladdu see bay ahayd. maanta inteennana waxaan nahay mas-uuliyiintii Jubbaland,
waan garanaynaa shalay markii aan nimid ee shabaab ka xoraynay xaaladda ay ku jirtay magaaladan aynu maanta joogno Kismaayo iyo maanta xaaladda ay ku jirtay nolosha taala wax qof waliba maanta uu og yahay oo garanayo waxaan garanaynaa inay u ahayd xarun dagaalada sokeeye danaha sokeeye ee dadku isku haystaan iyo danaha sheeyuhu ay ka leeyihiin intaba inay u ahayd ubuc ay wax waliba ka duulaan laakiin maanta waxaan gaarnay institutionno iyo sistamyo dhisan in intaan samayno aan beri kaga tegi karayno wax socda oo meel laga bilaabiyo meel loogu soo hagaagale iyo institutionadii dawladda oo meel ay ku shaqeeyaan iyo wax ku shaqeeyaan iskale waxaan isleenahay beri taariikhda idiin geli doontaa waana loogu iman karaya waa midaan isleeyahay maanta ma jiro gobolkan dagaal qabiil iyo masaalix qabiil iyo qabiil isku haysta midkoodna waxaa laga wada hadlaa ama la isku saxa ama la isweydiiyay waa dano iyo masaalix guud iyo see wax u qabanaa iyo halkeen gaarsiinaa maanta halkaasaan taaganay waxaan doonaynaa marka inaan horay uga sii soconno oo qaabkaa yeelno dowladda federaalka ee dhexe waxaan garanaynaa waxay soo martay dowladdii TNG waxay soo martay TFG waxay ka gudubtay waxay gashay dowlad aan ahayn ku meel gaar oo rasmi oo federaal ah intaas rag baa soo waday taariikh bay soo mariyeen ninba meesha uu gaadhay iyo halkuu gaarsiiyey dowladda maanta taalla waxaa laga sugayaa taramkeedu markuu dhammaado inay ka tagto wax cad oo la taaban karo oo meel loogu soo hagaagale oo taariikhda u geli karaya oo ay noqonayso in beri xisaabtankeeda la garto dadku ay yidhaahdaan aleele xilligaas waxaasaa la qabtay cabdilqaasim wuxuu sababay in la isu iman karayo dowladdii TNG TFG baa ka dambaysay waxay sababtay in caasimaddii la isugu tago oo balxamar la tago oo dowlad kumeel gaar ah oo meel laga bilaabo leh ay saldhigu noqoto waxaa ka dambaysay in dowladdii ay u gudubto dowlad federaala oo waqtigii madaxweyne xasan sheekh waxay noqotay inuu hirgeliyo sistamkii federaalismka oo ay noqoto inay isteydyadii kulligood ay dhammaystirmaan oo ay noqoto isteydyo iyo dowlad dhexe oo isku xidhan oo wada shaqaynaya dowladda maanta taagan waxaa laga rabaa horumarin iyo sii jiidid ay meel hore gaadhsiiso iyo inay ka sii bilowdo oo berri iyaduna la yidhaahdo dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo iyaduna waxay gaadhay sidaa iyo sidaa iyo sidaas iyo intaas macnaha aan uga jeedaa waxay tahay maanta marka aan ka hadlayno mas-uuliyadda dowladda iyo dadka iyo kulligoodna saaran ama mas-uuliyaadka jiraa waxay yihiin markaan wax iska weydiino waddanku waa federaal ciidamadu waa federaal sistamku waa federaal isteydyaa la sameeyey mas-uuliyaadku way qaybsan yihiin maxay u qaybsan yihiin wax dowladdii dhexaa iyo wax isteydyadii qaadanayaan iyo wax noocaas oo kale ah dowladda dhexe waxay taagan tahay mansiladii aabbaha oo kale marka waxaa looga baahan yahayna waxay tahay isku xidhnaan isku soo duubid isu keenis iyo in la dhaadhiciyo mas-uuliyaadkii iyo waxqabadkii iyo wixii dadka loo qaban lahaa maanta waxaan aad uga xumahay colayska ugu badan inuu ku dhacayo dowlad goboleedyada waxa ugu badanee maanta culayskana saaran annaga uu yahay risooska annaga aan leenahayna soo galaan inuu aad u yaryahay waddankiina loo aqoonsan yahay inay dowlad dhexe jirto wixii iyadu qaybinaysa dowladdii dhexana laga yaabaa wax iyada soo gaadhaay inuuna iyadaba soo dhaafin laga yaaba maanta ase Jubbaland waad garanaysaan baaxadda dhulka uu leeyahay iyo sida uu yahay iyo maanta culayskana saaran waa meesha keliya gobol dhan oo dhammaystirani uu maanta ka maqan yahay gacanta dowladda ee uu ku jira shabaab ee u suurtogelisay in shabaab madaxdoodii iyo cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo dhaqaalahoodii ay halkaas isugu geeyaanoo intay doonaan waddanka ay sii dhibi karaan inay gaadhsiiyaan ayna noo suurtoobi leedahay marka inaan tallaabo hore u qaadno iyo wax la sameeyo oo mas-uuliyaddii dowladda dhexe aan isleeyahay wax badan inay ka dhiman tahay sidii la doonayay iyo qaabkay ahayd duruufaha kale ee yaalla iyo dhibka jira waa midka aad arkaysaanoo maanta in dowladdii dhexe wax naga soo gaadhaan ama wax ka yimaadaan ama waxa soo gaadhaa uu fulo oo isteydyadii iyo gaadho cid waliba ay waxa ay leedahay gaadhaay aad bay u adagta ma doonaya ma aha iga dhaliil aan dowladda dhexe dhaliilayo laakiin waa toosin iyo sixitaan marar badanna aan iyagana kala hadlay oo aan doonayno dowladdaasi inay noqoto dowlad
taariikhda muddada ay jirtay gaadha marxalad adag oo cusub oo dadku beri lagu sheekeeyo ma aha inay ka tagto social media iyo propaganda iyo Facebook iyo maxay hala sameeyo iyo maxay hala raaco inay intaasi noqoto shaqada dawladda waa wax aad looga xumaado saxna ma aha taas marka waxaan is leeyahay arrintaasi waxay aad ugu habboon tahay inay dareento dawladda dhexe mas'uuliyaadka saaran dawlad goboleedyada culaysku inta uu leeyahay waxa looga baahan yahay wuxuu yahay iyo dawladda dhexe waxa laga sugayay maanta dawladda dhexe markaan Jubbaland ka hadlayo ma garanayo waxa naga soo gaaray muddada hadda ay jirtay waa wax aad u kooban marka laga reebo shaqaalaha rayidka ee World Bank ay mushaharka siiyaan iyo ciidan SNA oo dhowr meelood jooga ma garanayo cid kale oo maanta dawladda dhexe fanaha naga soo gaara haddii la yiraahdo waxa la sheego wax aad u kooban muddada wax maanta naga soo gaaray waxa anaga nagu dhacayana waad garanaysaa ha noqoto mas'uuliyiin golo wasiiro golo baarlamaan shaqaale dawladeed oo kale waxbarashadii arrimihii bulshada waxaasoo dhan dhibaatada kale ciidankii mushaharkiisii iyo logistikadiisii oo weliba gobolkan ciidanka ugu badan istay leeyahay isagu iskale intaasoo dhan maanta wax gacantanada laga sugayo way anaga ay yar yihiin dakhligana soo gala iyo waxaana soo gala maanta dekadaas ayna lahayn dhaqaale lagu xisaabtami karo oo soo galo la oranayo resource-kaasay leeyihiin oo dhaqaalahaas la soo galaa waa wax kooban waan xadidi karaa muddada dawladda federaalka waxa naga soo gaaray intay leegtahay iyo siday tahay taas markaa waxaan is leeyahay waxbaa la sheegaa dawladda waxbaa soo gaara waxbaa laga hadlaa inta badan laakiin waxay ku kooban tahay iyada iyo systemkeeda dhexdiisa waxaa nasiib darraa midda labaad waddanku inuu maalin walba galo crisis political crisis iyo constitutional crisis oo hadda isaguna weji kale u bilaabmayo speaker baa kana dastuurkii la waa la xaday ku kala kan la yidhi waa la sameeyey kulligeed waa wax dhibaato ku ah jiritaanka waddanka iyo wixii la hiigsanayay aad bay dhibaato ugu tahay waxaan is leeyahay arrimahaasi waa arrimo u baahan dawladda dhexe inay ka fakarto oo isweydiiso oo laga hadlo la yidhaha war aan wax dumino iyo kan aan keenno iyo kan aan ridno iyo kan aan kala tuuro sax ma ee maxaan dhisnaa maxaan hagaajinaa maxaan tarnaa xaggaan hore ugu tallaabsanaa in lagu fakeray asal tahay in crisis maalooba lagu bedelo la yidhaahdo intaasaa la sameeyey waxaan odhan lahaa dawladda dhexe bal dib ha u xisaabtanto dawlad goboleedyada dib ha u fiiriso iyadu dib ha isu fiiriso waddankana crisis kale ayaan la gelin ama constitutional ha noqdo ama mid siyaasadeed ha noqdee ha loo fakero dadku horay ha la fiiriyo aragti hore u socotana ha la fiiriyo taariikhda kuwii ka horreeyey ay soo mareen nin waliba maanta inuu qaato taasaa asala waxaa timid arrimaha hadda ugu dambeeyey oo duufaanaadka iyo fatahaadaha dhacay iyo arrimahaas oo kale fatahaadda iyo dhibaatada noocaas oo kale waa masiibo qaran waa wax dadoo dhibka soo gaaray bini'aadanka daciif iska ah markuu jafaaf dhaco waxaa la leeyahay abaar baa dhacday la soo gurmado hadduu daad yimaadana daadad baa dhacay la soo gurmado ma xamili karayno wax yar dawladda dhexe waxaa saaran laakiin mas'uuliyad oo ah inay ka gurmato oo caalamka la hadasho oo gaarsiiso oo ay ka hadasho waxa dhibaato sida arrinta hiiraan ka dhacday oo kale tan maanta gobolkan ka dhacday oo kale ama meelahan xorta weliba ana u cudur daaraya gobolka Jubbada Dhexe oo maanta kulligiin ay shabaab gacanta ku hayaan dhibka ugu badanna meeshu ka dhacay ay tahay gedo oo kale sida hadda Baardheer iyo Doolow iyo fatahaadaha ka dhacay intan inoogu dhow hadda Yoonto iyo waad aragtaa waxa ka dhacaya meelaha qaarkood Joorre oo kale way jirtaa waxaasoo dhan waxaan la hadlayay saaka Dhobley oo kale meel dabaal xataa dadku isugu gudbi karaan meelaha ku xareersan oo kale waa wax dawladda dhexe rabo inay baaqeeda iyo waxay ka gurban kartiyo kulli ka soo jeediso laakiin maxaa yaala dawladda waxaa rabaa inay guriga albaabka ka soo gasho waatul buyuut min abwaabiha guriga iridaa laga soo galaa waxaa fiican inay u muuqato dawladdu mid systemka ka hooseeya ee iyada la shaqaynayana xaq dhowraya dadkeedana u gurmanayso xaq dhowraysa laakiin hadday u muuqato in iyadu si kale loo isticmaalay dhibkeeda leedahay waan uga mahad celinayaa qoladii shalay Baardheer iyo Luuq iyo Tagteeb Ra'iisul Ku-xigeenku iyo xildhibaanadii la socday laakiin waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waase shaqadii aad lahaydeen oo qabateen waxaase ka sii fiicnayd idinkoo guriga iridda intaad ka soo gashaan maamulka iyo systemka meesha ka jiray iyo dhibaatada taala guddi baa la magacaabay madaxweyne ku-xigeenaha joogay guddoon baarlamaan baa jiray maalin wasiir dowlaha madaxtooyada iyo rag kala tagay
inay intay weydiiyaan iyaguna sida loo qabanayo loo waxeeyo maaha inaan annagu baardheer wax u diidannahay inaan gado wax u diidannahay inaan jubbada hoose wax u diidannahay maya waxaasoo dhan midna maaha ee waxaan rabna waxay tahay waxa la qabanayaa inuu noqdo wax dadku kalsooni iyo wadajir iyo midnimo lagu ilaalinayo gobolkaani waa xasaasi waa gobollada Soomaaliya ugu baahan in la ilaaliyo wadajirka iyo midnimada lagana ilaaliyo firqada iyo qabiilka iyo dareenka noocaas inuu soo baxo waa aad u xasaasi u yahay taa markaa dawladda ana uga mahad celinaya wixii caawimaad ay geysteen haddana waxaan leeyahay guriga iridaha laga soo galo waxaa jira oo raba inaan qodob yar wax yar ka hadlo arrinta khaliijka oo aad loo soo celceliyo arrinta khaliijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo markay arrintaasi dhacaysay wuxuu joogay magaalada Kismaayo talo ii weydiiyey waxaan ku yidhi madaxweynuhu waagii Masar la yidhaah loo wada gooyo xiriirka maxamed siyaad bare Allah naxariistay wuxuu yidhi maya uu diiday anagu ma dhexdhexaad baan ka nahay arrintaas Masar in loo gooyana sax ma carab oo dhanna way u geysay waxaan ku yidhi arrintan qadar iyo barnaamijkan dhacaya waxaan u baahanahay inaan dhexdhexaad ka noqono dhexdhexaad aan istaagno meel dhexaan istaagno aan ilaalino inagu sharafteena wixii markaa weliba dhexdhexaadin aan ka geysan karnaa aan ka geysano wax sax ma asalkeen aan ku talinaya taas ay ahayd ma ana u jeedin in qadar la cunaqabateeyo oo la go'doomiyo oo meel laga rido oo lala dagaalamo ama imaaraad iyo sacuudiya sidan la yeela midna ma ahayn qorsho laakiin waxaa isweydiin leh arrintaasi ma u socotaa sidii shalay qorshuhu ahaa maya way kala xigtaysatay dawladdu qadar jufaa lala noqday kuwii kalena waa burca tuugo oo sidan oo kale oo dhibaata ka dhacday aan miisaanka saarna markaa war annagu Soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carabi hadday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidda iyadu ay noqoto iyo dadnimada iyadu iyo dawladnimada iyadu midda la isku haystay dhibaatada laga geysanayo shay sax ma hadday noqoto qadar iyo maanta imaaraad iyo sacuudi iyo marka dib miisaanka loo saaro shalay Soomaalidu markay burburtay dhaqaalaheedii intii ganacsi iyo xoolo lahaa imaaraad bay la tageen iyo sacuudi shalay markii xawaaladaha la joojiyay hantidii Soomaalidu imaaraad bay ku badbaaday maanta dheefta iyo ganacsiga iyo waxa socdaay waa imaaraad iyaga maanta ay naga soo gaaraan Jubbaland markaan ka hadlayno wax ciidan maanta ama qalab noo siiyey ama tababare ama dugsiyo dhisay ama waxtar geystay weli ma ana qadar foundation qolo leeyahay wiil maalin la iga tusayna wax inta dhaafsan kuma aanan arko de wuxuu xagay tahay aanu xilanay war maxaan ugu xilanaa waxaan isleeyahay shay sax ma aha dhexdhexaadnimadii waa laga baxay waxaa laga sheegay berigii waqooyiga aad buu uga taagnaa yani nin agaasimo guud hadlo wuxuu yidhi BBC-da aad waxay uga falanqaysay oo aad uga sheegtay waxay tidhi arrinta Hargeysa waxa ka dhacaya waxaas aad u sheegtay nin baa hadlo wuxuu yidhi dayna walaalehen reer waqooyi dawladda Ingiriiska habeen bay naga xigaan buu marka waxoogaa dawladdii qadar bay jufa la noqotay waxoogaa waxaad moodaa inay laynkaas xawaaladiina ay dagaalka ay gashay taa marka waxaan leeyahay arrinta khaliijka dawladdu dariiq sax ma ku ah waxay ku dhaqmaysaa ama dib ha ugu noqoto wadadii ama hadday noqoto annagu aase Jubbaland iyo Soomaaliya waxtarkeedaba maanta imaaraadka nooga waxaysan markaan sidaa leeyahay shalay waxaan ahaa qofkii dhexdhexaad lahaa wali imaaraadka ka diiday cid walba ka diiday positionkii si cad u ahaa laakiin de markay noqoto hagoog xun inay meeshii timaado dee nin walba cidda annagu maanta waxba kuma qabno waxaa laga hadlaye xamar dabehe waa la gaarsi aad baan ugu faraxsanahay walaalahana Muqdisho in wax la talo in la siiyo laakiin wixii inay noqoto intii la isticmaalo meel kale in system dastuurkii lagu dumiyo baarlamaankii lagu dumiyo social media oo noqday isaguna wax kale taysul mustacaarka la soo kireysanayo timeelaha kale laga yimaado sidii shimbirkii qaaqda haya meelaha qayliyay waxay noqotay marka maanta waxa laga hadlayaa Facebook maxaa ku qoranayo yaa la caayay la sameeyay dawladnimada Soomaaliya waxaan aad ugu la dardaarmay madaxda Soomaaliya dawladnimadu social media ka baxdo system iyo dawladnimada wax la taaban kara la timaado waxaas oo marka wax u baahan in dib looga fakaro dawladnimada Soomaaliya waxaan ku talinayaa systemka maanta jiray inay dib u fiiriyaan xaaladday marayaan iyo dawladnimada Soomaaliyeed meesha ugu yimaadeen iyo meesha ka tagayeen waxaan rabaa international community inaan u jeediyo
war waxa Soomaaliya lagu bixinaya aan isweydiino ma dawladda federaalka ma gaarsiisaa waajibaadkeedii ma fulisaa dadka wixii ka dhaxeeyay ma gaarsiisaa mise wax iyada ku kooban oo dhibaato dadka loogu geysto oo mushkilado waxaan maqlay hadda waxaan African Union Security Council baa qoraal soo saarayo laga hadlayo kala wareegga ciidankiyo bal state baan nahay stateyaa jira ciidamada ugu badan baa jira wixii anaga gacanta ku hayn xataa tala ku baliyi hal meel kaga ma xusna waxaa la isugu tagay Brussels waxaa laga hadlayaa Soomaaliya intaas la siin kana la yeelaya maxaa la ilaalinaya xagee dawladdu wax ku wada iyay gaaraan yaa wax la siiyaa waxay la tahay inaan si dhab ah u xisaabtanaan diyaar anu waxaan diyaar u ahay dawladda dhexe waxaan aqoonsanay waalidkii waxaan aqoonsanay dawladdeedii horey baan u sheegay xataa mabaadi ahaan waxaan rumaysnahay waxaan u socdaa maanta inaan raadiyo taariikh ka tagno laakiin anagu social media uma imanin kamana shaqeeyo waxaan qabanaynaa ma aha intaas aad baan idinka mahad celinayaa waxaan rajaynayaa reer Jubbaland yaa dhexdeena la gel inaan dagaal sokeeyo ku noqon yaan la isku kaandirin yaan waxba qabaay loo waxayn yaan la samaynin ebelow kaala iyo kana dacayad loo sameeyo kana xal la siiyo kan lagu diro midna waxba uma waxisnaan intaas aan soo wareey salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh